wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland ay weheliyeen wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa si rasmi ah xadhigga uga jaray carwada toddobaad ee hotel Guuled ee magaalada Hargeysa oo sanad kasta laga qabto halkaasi intii munaasabadani socotayna halkaasi waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo la xiriira carwadan iyo muhiimadda ay leedahay xubnihii kala duwan ee halkaas ka hadlayna waxa ay tilmaameen xafladan ballaaran ee lagu daafurayo carwadan weyn ee qiimaha leh ee ka dhacaysa hotelka qiimaha badan leh ee dalka iyo dadka manaafacaadka badan u leh carwadan oo ka dhacaysa hotel Guuled inaan caawa xadhig aniga iyo wasiirada aanu wada soconay agaasimayaasha aanu furno qiimo weyn ka dawlad ahaan iyo ka dadnimo ahaan iyo ka wadan ahaanba noo leedahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay runtii carwadan ay noqoto carwad laga faa'iido oo qiimo weyn iyo macaash fara badan ummaddu ka hesho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka soo qayb galno ka dawlad ahaanna cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirrow nagu hogaaminayo waxaanu ballan ku qaadaynaa insha Allah haddii ilaahay raali ka noqdo inaanu dadka la qaybsanno oo aanu maamul daadejin samayno oo aanu carwooyinka iyo meel walba oo runtii ay ka dhacayso arrimaha noocan oo kale aanu kala soo qayb galno ummadana la wadaagno farxadda bisha Ramadaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka wasaarad ahaanna haddii aan ahay wasiirka maalgashigu qiimo weyn bay annaga noo tahay ka wasaaradahan leanno maalgashiga intaa la eg ee boqolaalka kun ee dollar lagu maalgeliyay waddanka qiimo weyn bay noo samaynaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cali cumar xasan guuleed oo furay carwadan iyo sidoo kale ganacsatada faraha badan leh ee halkan maanta goobta ku sugan ee wax ku iibinaysa waan dhamaantood ilaahay uga rajaynaa inuu ilaahay u barakeeyo businesskaasi bulshada Soomaalilandna waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan ganacsigaasi iyo fursadaasi sidii hore loo sheegay waxaynu ognahay ganacsigu inuu yahay fursadda ugu weyn ee waddankeena ka jirta haday tahay shaqaale abuur haday tahay dakhliga dawladda ee cashuuraha ee kala duwan laga helo siyaasadahan hadda xukuumadda cusub ee hogaaminaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaanu siyaasad cad ka leenahay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha haday tahay maalgashiga cusub ee noo imanaya iyo haday tahay sidii ganacsiga hore u jirayba loo joogtayn lahaa ama loo sustain gareyn lahaa sida wasiirku sheegay ka soo qaybgalka carwadan furitaankeeda carwada Guuled waxaan kala ogsoonahay in ganacsigu yahay lafdhabartii dhaqaalaha waddanka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiisku waxay mar walba mudnaan siinaysaa xidhiidhka ay la leedahay ganacsatada Soomaaliland mar walba waxaan ku dadaalaynaa sidii aan ugu fududayn lahayn xagga sharciga iyo nidaamka marka waxaan aad u hambaliyaynayaa carwada iyadoo ganacsigu yahay meesha ugu badan ee shaqaalaysa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan rajaynayaa in carwadan ay guulaysato hana qaado carwo ganacsiyeed qaybo kala duwana waxaan ilaahay uga baryayaa ganacsatada halkan iskugu timi inuu ilaahay maalka u barakeeyo bisha barakeysan khayrka badanna ilaahay khayrkeeda siiyo anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa farxad gaar ah ay noo tahay Hargeysa inay suuqeedu camirmo oo dadkeenu ganacsiga ay u jeestaan ganacsatada dhalinyarta ah iyo haweenka ee halkan iskugu yimina si gaar ah ayaan u dhiirigelinaynaa waana naga mudan yihiin inaanu khaasatan haweenka iyo ragga dhalinyarta baanu dhiirigelino waa waajibna saaran ilaahay idinku waxaanu rajaynaynaa inaanu garab istaagno wixii aan la qaban karnaa la qabanno waa ayaamihii ugu khayrka badnaa waxaynu gelaynaa 15kii dambe ee Ramadaan waa ayaamihii dadku ay ciidi jireen ay farxi jireen waxaanu rajaynaynaa insha Allah billahi kariim inay dadku ka wada qayb qaataan oo hotel Guuled waa carwada weyn ee caalamiga ah la iskugu wada yimaado oo dadku ay ka adeegtaan oo ganacsatada halkan alaabtooda keenayna insha Allah billahi kariim habeenka ciida laga wada dhameystira hadii la yiraahdo oo dadku ay ka ciidaan rag iyo dumarna waxaan ugu baaqaynaa dadkiina wax ka iibsada oo dadkiina dhalinyarta iyo haweenka wax ka iibsada ayaan leenahay oo u adeegaysa shacabka reer Soomaaliland culays badan ka dejinaysa magaalada Hargeysa suuqyadii hoose oo culays badan ka taagan yahay xilliyada Ramadaanta iyo ciidaha oo kale marka waxaan rajaynayaa inay dadku ka faa'iideysan doonaan haddii la yiraahdo oo ay noqon doonto xarun mashquulka badan ka dejisa suuqyadii hoose ganacsiga sidoo kale adeegii iyo maartay hawl fududayna u noqota dadweynaha khaasatan degmooyinka Koodbuur iyo Gacmo Dheere iyo galbeedka magaalada Hargeysa guud ahaanteed cali cumar xasan guuleed waxaan uga mahadnaqanaa inuu joogteeyay in uu xarun ganacsi hotel Guuled
oo ay ka faa'iideystaan bulshooyinka ganacsatada ah reer Somaliland oo bil walba fursada inoo siiyo ganacsatadeena fursada siiyo aad iyo aad baan ganacsatada ugu mahadnaqanaa sida joogtada ugu xidhan Hotel Guuleed mulkiilaha Cali Cumar Xasan Guuleed oo carwadan sanad walba halkan ku soo bandhiga oo carwadan sanad walba halkan ku qabta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waad arkaysaa inta kale businessku ama dhaqdhaqaaqa baayac mushtarku marba markaas inta badan Somaliland kor buu soo kacaya sababtuna waxa weeyaan amniga ay haysato Somaliland ee ay ku faanayso ayaa sababaya in ay Somaliland heerka gaadho runtii mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadnaqayaa mulkiilaha businesskan Guuleed Hotel dadku intan dambe bay yaqaanaanay waa business malaha nus qarneymka ku dhow intii uu shaqeynayay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan madaxdii waddanka ka soo qayb gashay ganacsatada waddanka oo iyaga u dhowdu kaalin weyn ka qaata isaguna geestiisa halkaas waxa ka hadlay ganacsada Cali Cumar Guuleed oo ka warbixiyay carwadan iyo muhiimadda ay leedahay weynaha sharafta leh ee mar walba uga maamuusa inay ka soo qayb galaan xafladana aad carwadan aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanad qurux badan inaynu helay ciid wanaagsan dawladdeena iyo dalkeennana inuu ilaahay noo barakeeyo waxaan u dirayaa salaan Ramadaan madaxweynaha qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo leeyahay Allah kula qabto inta adseeska dhigaysana waxaan ku dadaalaynaa in lagu garab taagnaado ummadana waxa u dana in aynu tawfiiq yeelano iyadoo qarankani uu leeyahay cadow badan mar labaad iyo mar saddexaadba wadac bay maraysaa waad ku mahadsantii wasiirada iyo agaasimayaasha iyo asxaabta qaaliga carwada Hotel Guuleed ayaa furnaan doonta 9 aroornimo ilaa 2 duhurnimo sidoo kalena waxaa la furi doonaa habeenimada 9 habeenimo ilaa 12 habeenimo ay furnaan doonto Cismaan Axmed Mansab TV Hargeysa.